habeen wanaagsan halkani waa London ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka magacaygu waa Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin dibadbaxyo cusub oo ay hormuud ka yihiin ardayda dugsiyada ayaa dib uga bilowday wadanka Suudaan wararkii ugu dambeeyay ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale caawana waxaa ka mid ah 57 maxaabiis ayaa dhintay kadib markii rabshado kale ay ka dhaceen xabsi ku yaala Brazil taasi oo keentay in dawladda loogu baaqo in habeen lagu sameeyo xabsiyada buux dhaafay waa geedo la abuurayo oo loo samaynayo mustaqbalka Ethiopia iyo cimiladeeda si looga hortago sanado badan oo xaaluf lagu hayo wadankaasi waa sidoo kale warbixin aan idinkaga haynaa mihnada kalluumaysiga iyo sida dad badan oo sabool ah oo reer Masar ah ay ugu tiirsan yihiin kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo bogga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka ardayda dugsiyada ayaa hormuud waxa ay ka yihiin dibadbax kale oo looga soo horjeedo dawladda magaalada Khartoum ee caasimadda wadanka Suudaan waxaana ay keentay in halkaasi toogasho lagu dilo 5 qof oo 4 kamid ah ay dhalinyaro ahaayeen isniintiina waxa dhacday in ciidamadu ay markaasi rasaas ooda kaga qaadeen iyadoo ay ardayda ka dibadbaxayeen Al-Ubayd waxaana laga cabanayay rootiga iyo shidaalka oo gabaabsi noqday mucaaradka ayaa ka baxay in wada hadallo ku saabsanaa waqtiga kumeel gaarka ah ee ay markaasi kula jireen militariga iyagoo ka cabanaya sida ay wax u dhacayaan hadaba golaha militariga ee wadanka Suudaan ayaa cambaareeyay dilkan halkaasi ka dhacay waxaana ay ku baaqeen in isla xisaabtan dhab ah la sameeyo qaramada midoobay waxay ku baaqday baaritaan kusimaha gudoomiyaha gobolka waqooyiga Kordofan ayaa waxa uu sheegay in dadka rabshadaha wada ay dadka kale ku soo dhuunteen si nabadgelyo ah markaasi u banaan baxay xaaladdu markiiba faraha ayay ka baxday waxaa dhacday inay halkaasi qaar raba rabshado inay soo dhex galeen oo ay dabeetana boobeen dukaamadii wax walba oo ay halkaasi mareen oo ay Khartoum Bank boobeen si ay magaalada oo dhan uga boobaan bangiyada ayay sameynayeen taasina waxaa keentay in dhowr shahiid ay halkaasi ku dhintaan ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistiisa siiyo dadkoodana samir iyo iimaan ka siiyo baaritaan ayaa furmay oo waa la baarayaa si ay wax u dhaceen dibadbaxyada ayaa iminka hadda waxa ay ka socdaan wadanka Suudaan kuwaasi oo lagu cambaaraynayo rabshadaha soo cusboonaaday ee wadankaasi Cabdiraxmaan Bidaan ayaa inoo eegaya xaaladihii ugu dambeeyay ee Suudaan fooda ayaa la istaray muuqaal la wareegsanaya baraha bulshada ayaa muujinaya iyadoo ciidamada nabadgelyada oo hubaysan ay ka hortagayaan ardayda dugsiyada oo codkooda oo kaliya ku hubaysan ardayda ayaa ka dibadbaxday xaaladda maciishada ee adag ee halkaasi ka taagan waxaana lagala hortagay ciidamada adag ee gurbadka degdega ah ee laga baqo rabshadihii isniintii ka dhacay magaalada Al-Ubayd ayaa 10 qof wax ku noqdeen dhakhtarka magaaladana waxaa jooga eheladii dadkaasi wax noqday oo warwar ka muuqdo mas'uuliyiinta ayaa ku dhawaaqay xaalad degdega oo halkaasi lagu soo rogay iyo waliba bando laakiin warka ku saabsan shilkan ayaa ku faafay dalka meelo badan oo kamid ah waxaana isla meelahaas ka dhacay dibadbaxyo kooxaha dimuqraadiyad doonka ah ayaa ku eedeeyay in taliska militariga ay ka dambeeyaan dhibaatadani laakiin se madaxa golaha militariga Cabdilfataax Al-Burhaan ayaa isagoo cambaareeyay wixii dhacay isagoo ku baaqay isla xisaabtan dareen cusub oo dadweynihii waxa uu halis ku noqon karaa qorshaha xukunka lagu wadaagayo ee u dhaxeeya militariga Suudaan iyo rayidka dalkan ayaa u muuqda mid ka sii durkaya dib u heshiisiinta siyaasadeed 57 maxaabiis ayaa lagu dilay rabshado ka dhacay xabsi ku yaala wadanka Brazil waa markii labaad ee ay sanadkan rabshado caynkaasi oo kale ay ka dhacaan xabsiga la yiraahdo Altamira ee ku yaala gobolka Para Usmaan Cabdi Xasan ayaa ka waramaya 57 maxbuus ayaa lagu dilay rabshado ka dhacay xabsi ku yaala Brazil rabshadaha dhimashada keenay ee ka dhacay xabsiga Altamira ee gobolka Para waxay ahaayeen tii labaad ee ka dhacda sanadkan habka xabsiyada dadku ku bateen ee dalka
Do lado de fora, o desespero dos familiares. 5 saacadood ayay ku dhex dagaalamayeen xabsiga Altamira kooxo iska soo horjeeda burcad ah. intii rabshaduhu socdeen 2 ka mid ah ilaalada xabsiga ayaa la qabsaday, markii dambena waa la sii daayay. waxaan caddayn karnaa waxa weeye inay goobtani tahay goob naxdina, dad luqunta laga jaray iyo dad qiiqa ku dhintayba, balse hadda way degan tahay. maxaabiistii waa la kala saaray. waxaan si sugaynaa liiska rasmiga ah, kuwii wax noqday iyo kuwii ka badbaaday rabshadaha. isku dhacyada dhexmara kooxaha burcadda ee iska soo horjeeda xabsiyada Brazil waa kuwa joogto ah. bishii May, maxaabiis 40 gaaraysa ayaa iyagoo la ceejiyay isla maalin laga helay 4 xabsi oo ku yaala dalka. tirada badan ayaa badiyaa loo sababeeyaa rabshadaha ka dhaca xabsiyada Brazil. tirada maxaabiista Brazil si xawli ayay u kordheen, in ka badan 230,000 ayay ahaayeen sanadkii 2000, iyagoo gaaray in ka badan 700,000 sanadkan 2019. tirada ay qaadi karaan xabsiyada Brazil waa 423,000 oo ruux. Altamira waxa uu qaadi karaa 200, balse waxaa ku jira 309 maxbuus. mas'uuliyiintu waxay beeniyeen in tiro ka badan tan loogu talagalay ay ku jirto. maxaabiista ku lug lahayd rabshadaha waxaa loo bedelayaa xabsiye kale, balse kuwa dhaliila waxay sheegayaan in loo baahan yahay dib u qaabayn weyn si loo joojiyo rabshadaha ay burcaddu keenaan. bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa. shirkadda Shiinaha ee isgaarsiinta ee Huawei ayaa dakhliga soo gala uu kordhay in ka badan 5 qaybtii ugu horeysay ee sanadkan, iyadoo ay jirto in uu geliyay Mareykanku liiska madow. Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in ay halis xagga amniga qaranka waddankaasi ay ku keenayso shirkaddaasi tiknoolajiyadeeda 5G la yiraahdo, oo ay gacan siin karto in Shiinuhu ay basaasaan macaamiisheeda. Huawei waa ay beenisay arrintaasi. maxkamad ku taala waddanka Iiraan ayaa dil ku xukuntay duqii hore ee magaalada Tehran kadib markii uu dilay xaaskiisii. Maxamed Cali Najafi oo ah siyaasi caan oo isbedel doon ayaa lagu helay dambi ahaa inuu toogtay xaaskiisii Mitra Ostad gurigooda oo ku yaala magaalada caasimadda Tehran. isaga ayaa la sheegay inuu soo dhiibay oo uu qirtay in arrimo qoys dartood uu u dilay xaaskiisii. qiimaha lacagta pound-ka ee waddankan Britain ayaa hoos u dhacday iyada oo markaasi laga cabsi qabo in iyada oo aan heshiis la gelin laga baxo midowga Yurub sanadkan dhamaadkiisa. lacagta Giniga ayaa waxa ay tagtay meeshii ugu hooseysay muddo 2 sano ah. Ra'iisul Wasaaraha cusub ee waddankan UK Boris Johnson waxa uu kala xaajoonayaa mas'uuliyiinta midowga Yurub heshiis cusub, laakiin waxa sidoo kale kor u qaaday diyaar garowgiisa ah hadiiba ay noqotay in laga baxo midowga Yurub heshiis la'aan. 10 sano ka hor maanta oo kale ayaa xarun booliis waxa lagu dilay ninkii aasaasay Boko Haram. taariikhdaas waxa loo arkaa inay tahay halka ay ka bilaabatay falalka argagixiso ee kooxdani ay ka waday waqooyiga bari ee waddanka Nigeria. kooxdu waxa kale oo markaas la sheegayaa in ay kala jabtay oo iyana ay bilow u ahayd qalalaaso kale oo cusub, iyadoo kooxda isku magacaado dowladda Islaamiga ee galbeedka Afrika ay doonaysay in ay khilaafo ka dhisto gobolkaasi foodada ah ee ku teedsan harada Chad. Aisha Afrax ayaa inoo haysa warbixintan dib u eegaysa 10kii sano ee kooxdaasi ay jirtay. digniin sawirro naxdin leh ayaa ku jira warbixinta. Boko Haram waxaa laga wadaa waxbarashada reer galbeedku waa mamnuuc. ninkan ayaana aasaasay waxa uu nacbaa reer galbeedka isla markaana u arkaa dowladda Nigeria inaysan ahayn mid Islaami ah. bishii July 2009 Boko Haram waxay kacdoon ay uga soo horjeedaan dowladda ay ka bilaabeen gobolka Borno. 800 oo qof ayaa lagu dilay, xubno badan oo iyaga ka tirsanna booliska ayaa qafaalay. mas'uuliyiintu waxay u haysteen inay ururka burburiyeen kadib markii ay Maxamed Yusuf uu dhintay isagoo booliska u xiran. laakiin sanad kadib mid ka mid ah ku-xigeenadiisa Abubakar Shakawu ayaa ku dhawaaqay inuu yahay hogaamiyaha cusub ee Boko Haram. intii u dhaxaysay 2013 ilaa 2015 waxa ay dileen in ka badan 11,000 oo qof. suurtagal maysan ahayn in la tiriyo tirada meydadka, aad ayay u badnaayeen, rag, dumar iyo carruurba waa la dilay. sanadahaasi ururka waxay awood u heleen inay dhul badan sii qabsadaan. sidoo kale waxay weeraro ka fuliyeen dalalka dariska ah sida Niger, Chad iyo Cameroon. qaramada midoobay ayaana ku qiyaastay in ka badan 2.2 milyan oo qof inay barakaceen.
laakiin weerarka Boko Haram ugu weynaa waa markii ay bartilmaameedsadeen gabdhaha ardayda ahaa bishii Abriil 2014 xubno dabley ah oo Boko Haram ka tirsan ayaa 276 gabdhood ka watay iskuul ku yaala magaalada Chibok. Afduubkan ayaa sababay caro weyn caalamka oo dhan. Over 100 students are kidnapped by of the Chibok girls have received international planet to stand with Nigeria. Nigerian government should have shared. They don't really understand Islam. Inkastoo qaarkood la soo daayay 5 sano tagtay in ka badan 100 ka mid ah gabdhahaasi wali waa ay maqan yihiin. Dawladda Nigeria ayaa dib u qabsatay magaalooyinka qaar. Marka uu arkay in dawladdu ay dhulka qabsanayso, Shaka waxa uu bilaabay raadinta xulufo cusub isagoo ugu dambeynna la bahoobay dawladda Islaamka. Balse IS hogaamiye cusub ayay u magacaawday xulafadooda jooga galbeedka Afrika. Boko Haram ayaana sidaasi ku kala jabtay. Ururkii loo yaqaan dawladda Islaamka ee gobolka galbeedka Afrika oo loo soo gaabiyay ISWAP ayaa bedelay istiraatiijiyadooda. Farsamada ISWAP hadda ma ahan oo kaliya dagaal ee sidoo kale waa isku darka mashruuc dal dhisid. Khilaafada IS waa looga guuleystay bariga dhexe. ISWAP ayaa doonaysa inay khilaafad cusub ka yeegleedaan galbeedka Afrika. haddii ay ku guulaystaan Boko Haram waqti dheer ayay sii joogi doonaan. waa tahay mar walba waxaad nagala socon kartaa bogayga Facebook BBC Somali. Facebook waxaad la raadisaa BBC News Somali oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqayn dheeraada iyo wararka ugu waaweyn. Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkaba nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram. wali waxay noo soo socda oo qaybta dambe aan ku eegi doonaa warbixin aanu kaga hadlayno mihnada kalluumaysiga iyo sida ay dad badan oo sabool oo reer Masar ay ugu tiirsan yihiin. wax yar kadib ayaanu isku soo noqon doonaa. wali waxaad daawanaysaa barnaamijka caawiya caalamka. magacaygu waa Farxaan Maxamed Jimcaale. aan idin xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn. dibadbaxyo cusub oo ay hormuud ka yihiin ardayda dugsiyada ee waddanka Suudaan ayaa dib uga bilowday dalkaasi. 57 maxaabiis ayaa dhintay kadib markii rabshado kale ay ka dhaceen xabsi ku yaala waddanka Brazil, taasi oo keentay in dawladda loogu baaqo in dib u habeen lagu sameeyo xabsiyada buux dhaafay ee waddanka. dawladda Itoobiya ayaa waxay sheegaysaa in ay gacan ka siisay dadkeeda in ka badan 350 milyan oo geed in hal maalin gudaheed la abuuro, taasi oo ay sheegayso in ay noqonayso rikoor cusub oo adduunka ay u dhigtay. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa hormuud u noqday mashruucaasi, kaasi oo looga gol leeyahay in laga hortago xaalufinta iyo isbeddelka cimilada oo deegaankaasi xudun u ah abaaraha waddankaasi ku dhufta. Mawlid Xaaji Cabdi ayaa ka warramaya. ra'iisul wasaaraha Itoobiya kama aanu gamban in gacmihiisa dhiiqada u la galo. kani waa mid ka mid ah 350 milyan oo geeda oo ay dawladdiisu leedahay, waxayna ku beeraynaa waddanka oo dhan. taasi waxay ka dhigan tahay ku dhowaad 3 muwaadin kasta oo Itoobiyaan ah. aragtidan dhaxalgalka ah ee dhiraynta ra'iisul wasaaruhu hindisay waa isku day lagu doonay in dib loo soo celiyo dhirtii xaaluftay oo ay sababeen gubista dhirta iyo dhulbeereedka. horaantii qarnigii 20aad dhirtu waxay daboolaysa in ka badan 3 meelood, laakiin horaantii sanadka 2000 tiradaasi waxay noqotay 4%. deegaanku waa arrin aad walaaciisa u leh heer caalami, laakiin sidaasi oo ay tahay waddankan dhibaatooyinka badankooda iyo abaaraha aynu aragnay waxaa lala
xiriirin karaa iyadoo aanay jirin ilaalinta deegaanka. 1,000 xarumood oo ku kala yaala dalka ayaa la sameeyey. qaar ka mid ah xafiisyada dawladda ayaa la xiray si ay shaqaaluhu uga qayb qaataan hawshan. diblomaasiyiin ayaa sidoo kale ka qayb qaatay. ujeeddada ugu weyn waa in la beero 4 bilyan oo geedo rasmi ah, laakiin dadka dhaliila ra'iisul wasaaraha ayaa farta ku fiiqay in uu u adeegsanayo mashruucan si uu indhaha dadka uga weeciyo caqabadaha ay xukuumaddiisu wajahayso oo ay ugu yar yihiin xiisadaha isirka ku salaysan, kuwaasi oo ku qasbay in ka badan 2 milyan oo qof inay ka farxadaan guryahoodii. haddaba tallaabadan ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ku doonayo dhiraynta dalkiisa maxaa laga baran karaa? waxaa qadka Skype-ka ee magaalada Linköping ee waddanka Sweden si toos ah ugu jira Maxamed Shucaib Axmed oo u ololeeya ilaalinta deegaanka. Maxamed soo dhawow, bal inaga waran waxa laga baran karo arrintan Itoobiya maxay tahay Maxamed? waad mahadsantahay Farxan. waan dhawahay haddii aan ku soo dhawaado barnaamijka oo aynu ka warbixino waxa laga baran karayo farintan amaba hawshan Green Legacy-ga ee ay sameeyeen dadweynaha Itoobiya oo hogaaminayo ra'iisul wasaarahooda waxay tahay mid laga baran karayo haddii ay dadku isku tashadaan inay sameyn karayaan wax badan oo ay ka mid tahay dhirbeeris, biyo qabatin iyo hawl kasta oo la isku kaashadaaba in laga midho dhalin karayo higsigii laga lahaana la gaari karayo marka la yimaado itijaah, doonis iyo ficil. marka hawshan haddii aynu u soo noqono waad ogtahay oo intii ay filayeen markii hore inay beeraan amaba yoolkoodu ahaa ka badan bay beereen markii ay dadku si midaysan guud ahaan uga qayb qaateen baaqii ra'iisul wasaarahooda. marka ciidda iskaashigu muhiimadda ay leedahay baa horta aynu ka baran karaynaa iyo wax kasta oo loo dadaalaaba in laga midho dhalin karayo. waan gartay Maxamed, waxaa tiri dadku waa inay iskaashadaan, waa run oo gacmo wada xijir bay wax ku gooyaan, laakiin ma isdhihi kartaa qorshahan waa mid iska laablakac ah oo imkaanaadkii iyo wixii loo baahnaa iyo biyihii iyo dhirtii ayadoon lahayn hal maalin wax laguma dhaqaaqi karo? horta waxaa muhiima Farxaanow in laga fikiro maxaa caqabad ka hor iman karaya dhirta la beeray. geeda waa la beeri karayaa hal maalin, tusaale ahaan bulshada Soomaaliyeed oo dhan hal maalin dhir way beeri karaysaa, laakiin waxaa muhiima dhirtaasi ilaa iyo intay korayaan ka hana qaadayaan ma laga warhayn karaya. waa runtahay waa la oran karayaa waa dareen laablakac ah oo ma garanaysaa amaba lagu degdegay, laakiinse waxa aynu u fasiran karaynaa sida togan inagoo ka tusaale qaadanayna doorsoonka cimilada iyo dhibaatooyinka ma garanaysaa haysta bii'adan aynu ku noolnahay. dhirtii laga dhameeyey, abaaruhu ay kusoo noqnoqonayaan siiba madaqadan geeska Afrika oo aad iyo aad ugu caan baxday abaaro soo noqnoqda oo inta badan ay ugu wacan tahay roob yaraan. wayna ognahay muhiimadda ay dhirta iyo roobku isku leeyihiin, muhiimadda ay dhirta iyo biyuhu isku leeyihiin. haddii roob doo dhirtu waxay noqonaysaa biyo qabatin bay noqonaysaa, biyihii bay ka reebaysaa macdanihii dhulka u baahnaa, biyihii bay dhulka gelinaysaa. marka horta labada siyaabood waynu fasiran karanaa inay tahay dareen laablakac ah oo ma garanaysaa dadka dhaliilaya sida ay ku dhaliilayaan ma garanaysaa isaga jeedinaya dhaliilihiisa iyo dhinacan togan haddii aynu eegnay tallaabo wanaagsan oo loo qaaday. waan gartay Maxamed, haddaan eegno marka dhinacan gobolka Soomaalida ee Itoobiya waxa uu ka mid yahay meelaha sida baan xaalafka uga jira ee abaaruhu ay saameynta ku yeeshaan sanad walba ay ku soo laabtaan. mashruucan marka dadkaas Soomaalida ee Itoobiya sidee uga faa'iideysan karaan baad isleedahay? horta dadka Soomaalida ee Itoobiya waxay ka mid yihiin dadweynaha Itoobiya ama dawladda Itoobiya. dadkaasina waa dadka deegaankoodu u nugul yahay inay abaaro soo noqnoqda ka dhacaan marka loo eego juqraafi ahaan halka ay kaga yaalaan dalkan ay ka tirsan yihiin. mashruucani wax weyn buu tarayaa dadka deegaankaasi ah oo waxa ay dib u soo celin karayaan dhirtii kaga baxday dhuxulaysiga, dhirtii kaga baabaaday abaaraha, dhirtii ma garanaysaa aqoon la'aanta lagu baabiyey ama lagu gubay ayay qayb ka noqon karaysaa in ay dib u beeri sameeyaan oo ay soo ceshadaan dhirtii ingeyga Soomaalidu caanka ku ahaa iyagana waxtarka u noqon lahayd. aad iyo aad baad u mahadsan tahay Maxamed Shucaib Axmed. aad baan waqtiga kaaga mahad celinayna waxa uu ku jiray khadka magaalada Linköping ee waddanka Sweden. bal markana wararka ciyaaraha haddii aynu eegno waxaan u leexanaynaa dhinaca ciyaaraha ee booliiska waddankaasi Brazil oo baaraya eedeymo la xiriira kufsi loo haysta ciyaaryahanka Neymar ayaa sheegay in ay kiiskiisii xireen. waxay sheegeen inaanay waxba ku helin wax cadayna inkastoo dacwad ogayaasha la weydiisan doono go'aanka kama dambaysta. ciyaaryahanka Neymar ee kooxda PSG oo ciyaara ayaa lagu eedeeyay gabar model ah inuu ku weeraray hotel ku yaallay Paris taasi oo uu si xoogan isagu u beeniyay.
ciyaaryahankii hore ee difaaca kooxda Manchester United Patrice Evra ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu ka fariisanayo ciyaaraha waxa uu in ka badan 80 jeer u saftay Faransiiska wuxuuna u ciyaaray 8 naadi oo ay ku jiraan Monaco iyo Juventus 38 jirkan ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu tababar noqdo oo isdiyaariyo muddo 2 sano ahna uu koox ku leylin doono dadka xiiseeya ciyaaraha kubadda cagta waxa ay indhaha ku wada hayeen koobkii qaramada Afrika ee dhawaan ku soo dhamaaday wadanka Masar oo Maxamed Xaraare si toos ah nooga soo warramay maalin walba hase yeeshee dalka Masar waxyaabo kale oo aynan kubadda ahayn oo ay caan ku yihiin ayaa jira oo badan waxa ilaa 12 bilyan oo dollar sanad walba ka hela dalxiiska wadankaasi uu ka hela lacagtaasi dalxiiska sidoo kale waxa uu leeyahay dalku gas iyo beero fara badan waxaana mihnad jirta in dawladda iyo dadka caadiga ay caan ku yihiin oo ay ku tiirsan taasi oo ah kalluumaysiga Maxamed Xaraare hadaba waxa uu la kulmay intii uu halkaasi joogay kalluumaystada reer Masar oo rajo badan qaba kalluumaysiga Masar dadka qaarna waa u shaqo qaarna waa u balwad waa mihnad si weyn loo hormariyay dalkan waxaa lagu sheegaa inuu yahay mid ka mid ah goobaha kalluumaysiga ku habboon ee dunida waxaa lagu tilmaami karaa marinka kalluumaysiga sababtoo ah ilbaxnimada Masar ayaa loo tiriyaa in ay dunida tustay habka kalluunka loo jilaabto iminka kalluumaysigu weli waa mid aad u horumarsan dalkan oo aad si weyn ugu arkayso xeebaha balliyada iyo webiga Niil waxa uu kalluumaysiga Masar soo saaray ilaa 1.3 milyan oo tan sanadkii 2010kii afar qaybood meelna wax soo saarka waxa lagu iibiyay gudaha dalka halka inta badan loo safriyay suuqyada caalamka tirakoobkii ugu dambeeyay waxa uu muujiyay in tirada dadka Masar ay 100 milyan kor u dhaaftay taasoo ay macnaheedu tahay in dad dheeraad ah uu kalluumaysigu noqon doono qutul daruuri dad badan ayaa aaminsan in dalkani uu dhaqaalo dhex dabaalanayo marka la eego shidaalka gaaska iyo beeraha uu leeyahay si la mid ah dalalka kale ee qaaradda Afrika dadka ku nool dalkan Masar hanti qani kama wada aha laakiin taa macnaheedu ma aha inuu dalkani faqri la liito hay'adda UNDP-da ayaa ku qiyaastay 40% in dalkan dadka ku nool ay sabool yihiin in badan oo kamid ah dadka saboolka ahina noloshoodu waxa ay ku tiirsan tahay kalluumaysiga markasta oo munaasabada waaweyn dalkan martigeliyana dadka saboolka ahi fursad muhiim ah ayay u tahay dabcan dhaqaalaha ayay kor u qaadaysaa siiba marka dollarku dalka soo galo dawladda Masar si taxadar leh ayay u dejisaa xeerarka kalluumaysiga maadaama ay soo badanayaan dhalinyarada kalluumaysatada ah ee mararka qaar doonaya inay xeerarka hareer maraan dhammaan harooyinka Masar waa loo fasaxay kalluumaysiga marka laga reebo meelo xadidan oo loo daayay dalxiiska sidoo kale baraha dalxiiska ee ciyaaraha barafkana waxa laga xadiday harooyinka qaar si aan iyana kalluumaysiga gudaha loo dhaawicin dalka Masar waxa uu iminka u muuqdaa mid si tartiib ah uga soo kabanaya burburkii dhaqaale iyo rabshadihii siyaasadeed ee dhawaan ku habsaday kor u kaca dhaqaale ilaa 5.3 lagu qiyaasay ayaa dadka deegaanka gelinaya rajo iyo mustaqbal Maxamed Xaraare BBC Qaahira ugu dambeyntiina waxaan idinkaga tagaynaa hab cusub oo cunto degdeg ah lagu samayn karo robotkan dalka Singapore lagu farsameeyay wuxuu awood u leeyahay in uu ku sameeyo baaquli cuntada laaska oo kamid ah cuntooyinka magaaladaasi aadka loogu jecel yahay in ka yar 45 ilbiriqsi robotkan lagu magacaabo Sofia ayaa dadka hindisay waxay ku sheegeen in uu ku samayn karo 80 baaquli oo cuntadaas ah muddo saacad ah taasi waxay ka dhigan tahay in adigoo taaganba cuntadii si fudud aad uga qaadan karto waa cajiib waa tahay xusuusna